السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلا شيطان كياله هلا سودو هذا ومشارح يشيلو كريبي شينا علي أودونيا إنه وحون ذي كتاتابتو حالة بنتلان وعلى السعوتين إنه قمنا كدقيسو قمنا إنه سي سعوتا على السعوتين هداني لهاي فرش خير قبا أفرين وبلايدا يصبير ستي لهاي كلا دول قادين وحوي هجان في عن أودتك كوسو ولا هيرين كلامنا أنا لهاي الدورين أريدها صار بعينا كهالله وإنتانا برنامجكم وجود الجلوم واحد اللي هي والفيديو هالليجاسي شير قريو هالليجاسي شير قريو هورت الريرك علي سليمانها علي سليمان أنيقو مركان علي سليمان قودي سيابي وحو تكنيكا كان يابي والدولة كل حنولبا وحكم واحد على إنه كلام ما بقى هوا عيدا كي بتلان بقى جواري قرقرة وتقال لا يجينا بيجي يسع الدولية بيجي بوف warheeda waxa xagee kala soo degan ma ruush baa ugu deeqay mashiina ugu deeqay anagu garan meeno quwadda cali saleebaan markii laga yaabay cali harti baa loo bixiyay cali harti waxa loogu bixiyay waxa weeye awal jif xisaabsanayeen hadda waxa beel weyn bi xisaabsanayaan oo majeerteeniyo bay la dhigmayaan cali harti maxamed harti saciid harti ku bishaareysta ilmaha harti mid baa ku soo biiray odayga waa la oran jiray odayga ma jeerteen baa nool wax dhalaa la oran jiray hadda odayga hartina waa soo noolaaday wax uu dhalaya cali harti buu dhalay hadda cali harti inoo dhalay marka warsangali waxa weeye iyo dhulbahanti inta ay xaq u leeyihiin in ka badan ba cali harti xaq u leeyahay sababtoo ah dad Norway oo dad wax iska dhicinaya dad waxa weeye nafi ku jirto dad dhaqdhaqaaqaya weeye marka cali saleebaan cali harti baa loo bixiyay waa la yaabay shalay konto technica buu saasu daba jooga warheede warnimanka lacag waa ku ogaa ganacsi waa ku ogaa maydi waa ku ogaa beeyo waa ku ogaa cimaamad beeldaadinimo waa ku ogaa laakiin hubka inta tiran la eg ya war xagee ugu dugnaa waa la yaabnay dani wuxuu mooday warsangali buu mooday markaasuu markuu ka war helay markuu damcay shirkadooda inuu weeraro cali salaam shirkadooda inuu weeraro kala ka cishado markuu damcay oo ay carma ka soo baxeen buu yiri haloo istaago maxaa ku raada controlka boos haloo istaago wixii uu ciidan hayay xataa kuwii caloshadu shaqaystayaasha ah oo imaaraadka kuwii Mareykanka BSF la oran jiray waxa laala iyo wuxuu ciidan hayay buu wuxuu isugu keenay controlka wuxuu hal celiyo afka hal jibi cali Saleymaan tii ku dhacday waa la ogaa isaga waxa weeye ord baa lagu jiro ord difaaciisa waa la jabiyay warinku ilaa nin tabar hayaba ma nin tabar hayaba ilaa maaha ya waxa la yiri ya qooraa raggu waxa la yiri ma adka laakiin meel ka jilcsan buu helay dani waxba lama joogay dad masaakiina ya buu intuu dhigooda soo daadiyo ku badbaaday markaasuu dadkoo dhan dadka u maleeyay hadda cali buu eeday waxay la tahay isaga iyo cali Saleymaan Puntland wada joogi mayaan isaga iyo ciise Puntland wada joogi mayaan sida u badan tahay ciise ku soo haraya sida ku socoto cali baa ku soo haraya waxa la socoteen markuu boosaas damcay halka isbaara inuu u dhigto hala sii sheer gareeyo halka ina cali Saleymaan indhaha qaadeen 40 technica ah magaalada la galeen 30 baa ugu jiray markaas uu bariyo tumay oo ismadii la hadlay halayga qabto dawladnimadii bay burburinayaan waxay rabaan waa la siinayaa cali Saleymaan ismadii baa kacay waa la bariyay waxa la yiri Puntland ninkaas maanta dartiyaan loo baabi'in waxyaabihii ay tabanayeen shirkadii BDG faraha looga qaaday faraha wuxuu yiri intaan xilka joogo xataa dhinaceeda eegmayo BDG waa shirkadii 8 bilood u kala shaqeeyay oo imaaraad 6 jeer ugu tagay oo yiri qandaraaska laga qaado oo 6 ilmaadeertiisa iyo 6 aarashaadayna shirkada ay ku heshiyeen uu soo samaystay way haruuka shirkadu u socoshay wuxuu yiri intaan Puntland joogo dhinaceeda eegmayo cali Saleymaan sidoo kale wasiir baa u kordhinaya biir hadda hal wasiir bay leeyihiin waa cadaalad daro inay hal wasiir leeyihiin reerka quwadda leh inay hal wasiir leeyihiin waa cadaalad daro sababtoo ah ciise maxamuud oo jifi maxamuud Saleymaan kamida baa laba wasiir oo wasiiradii dalka ka dhaqaaqay leh Umar baa laba leh oo maxaan ku raadayay jifi maxamuud Saleymaan kamida cismaan baa haba sheegin ba madaxweyne taliye ciidan daraawisheed wasiir macdan haba ka hadlinba inta xil uu magacaabay cismaan baa u badan boqolkiiba 8 wuxuu magacaabay cismaan weey marka cali Saleymaan waxa loo balan qaaday BDG inaan la eegin xageeda ay halkooda iska raqaan wasiir cusubna in loogu daro maxaa ku raadayay agaasimayaasha guudna in 3 agaasimo guud oo cusub la siiyo intaas lagu maslaxay ciidamadaasna waxa weeye xuquuqdooda kor loo qaadi doono kor ninkii ciise
gaashaanle dhexe buu ahaa dani wuxuu yidhi generaal baan ka dhigayaa generaal ciise hadduu boosaaso ka baxo generaal baan ka dhigayaa heshiiskaasaa la gaaray ciidamadii shalay bay si nabadgelya magaalada uga baxeen waa arkayseen carmo iyadoo calamada la tumayo halgamayaa bay halkaa gaareen ciidankaas ciise yulux wato oo guuto bari baa la yidhaahdaa waxay ahaayeen ciidan puntland lacagta siiso bay ahaayeen ciidamada daraawiishta puntland bay ka mid ahaayeen waxaa la socotaan puntland ciidamo isku dhafa oo daraawiish la yidhaahda ama xoog inaysan lahayn reer walbaa waxooda meel la fadhiyo ciise maxamuud nin jimcaale la yidhaahda u haya tiknikadooda waxa cismaan maxamuud nin la yidhaahdo waxa u haya caagadaysta u haya nin la yidhaahdo maxaa ku yidhahdaa cumar maxamuud kadaalik nin baa u haya marka dani wuxuu damcay ciidankii cali saleebaan inuu shaabad xun ku dhufto ciise yulux nin la dhahaa cali saleebaanna u hayay jimcaale iyo caagadaysta halkaa ay baxaan bay baxayeen wuxuu damcay inuu fuquuqo kuwa kana uu ka dhigo ciidan puntland leedahay kuwa kana maleeshiyaad bay leedahay laakiin waa la isku fahmay miiskaa la isugu yimi haddana isagiibayba tiisu waxa weeye isagiibaaba allow ibixi isagaa dhulku la soo yaraaday boosaaso markii laga qabsaday puntlandta lagu sheegaya waa boosaaso iyo cidla xoogaayaa kiiska bariiska halkaa kasoo dega oo halkaa lagu cashuuro oo weliba hadda nus imaaraad cashuurta kasoo baxda qaato baaba lagu bahalkayaa marka cali saleebaan waa u hambaliyeynayaa ujeedkay boosaaso u tageen waxay ahayd shirkadooda inay difaacdaan wixii xaqa oo puntland kaga maqan ay soo dhacsadaan waa ku guulaysteen shirkadoodiina faraha looga qaaday wasiir cusubna waa u kordhay 3 agaasimo guudna waa u kordhay waa loo ballan qaaday 2 wasiir bay hadda kadib helayaan iyo 3 agaasimo guud bay heli doonaan ciise yulux korneelkoodina generaal baa looga dhigaya korneelka bilad sharaf baa la siiyay bilad sharaf puntland bilad sharafta waxaa la isku siiyaa baqdin baa la isku siiyaa ninkii habaar qaba ah oo dagaalamaya oo xaqiisa dhacsanaya bilad baa u kordhay ciise hadda bilad baa u kordhay ciise bilad baa u kordhay kii daacada oo iska fadhiyo miskiinana waa ka dhacdaa maalin walba mid baa ka dhacda ilaa uu xidigal ku tago oo wuxuu hayaba laga wareejiyo marka cali saleebaan isbarte in cabdullaahi din isbarte rag dhalay baa tihiin magaaladiina duqush xabad kama idin siin danina waxaa la joogaya 5 sano puntland joogo ninkii iska celiya car iyo wir baa lagu wada joogaya wax kale oo lagu xishood ma jiro ixtiraam ma jiro sharci ma jiro wax yaala male waa anaa ka xoog weyn ninkii iska celiya baa la joogaya cali saleebaan maalintii dhooto haddii aysan sidaa yeelin go'aanka kii ugu saxsanaa bay qaateen haddii aysan sidaa yeeleen sidii warsangeli baa inta BDG inta loo tago baa madaxa inta 4 wiilo ilaalinaysan intuu habeen ku guurayo sidoo baarlamaanka ugu guureeyay oo wiilasha warsangeli madaxa uga guuray bukuwana madaxa uga guuri lahaa marka cali go'aanka ugu fiicnaa bay qaateen xaqoodina waa dhacsadeen waana ugu hambalyeynaya baa leeyahay waxaan rabaa inaan idiin sheego اسمك علي سليمان با wuxuu tagay iyo isma la socda ba dani waxay ugu tageen garow ugu tageen albaabku ka xirtay qaabil ma yiri war ismadii baanu nahay war BDG adigu way saysan war xaaladda ana wax ka qabanaa rabna maba aqoonsan ism buu yiri albaabku ka xirtay albaabka markuu ka xirto yiri la kulmi mayo buu habeenkii ay rabeen inay la kulmaan buu caagadayste iyo jimcaale iyo Muxiidiin u yeertay waa 3 nin oo Maxamuud Saleebaan oo midkiiba 10 gaar oo tiknika haysto oo maleeshiya qabiileed laakiin waxa weeye dawladda u qaramaysan weeye waa iyaga Ciise yulux wakiil wax ka dhifsiyo kaliya waxay ku kala duwan yihiin inay kan madaxweynaha Almaadeer yihiin bay ku kala wax kala duwana fooliyo baagay ku wada jiraan Ciise yulux meesha mushaharka ciidankiisa laga siiyo Muxiidiin kuisana laga siiya waa same way waa same wax u dhaxeeya male wuxuu sameeyay kuwaas u yeeray wuxuu yiri waasan haduu u bariyo buu yiri boosaaso gala BDG na shaqada laga wareejiyo NDG ha loo wareejiyo ismadii waa diiday markii cali saleebaan magaaladii galeen oo xoog ku jireen oo barida dhulka loogu dhufsay buu ismadii u yeeray oo bariyay oo yiri war heede haddaan wada hadal ogolahay orday aada marka cali saleebaan inta u dhaafimayo annagoo dhan baa ku diirsanay yaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ku diirsatay waxay ila tahay quwadda haddaan inoo haysaana waxay ila tahay laascaanoodna waa ku soo celin doontaan Ethiopia maalinta iska loo dii waa ku xisaabtamayna marka inoo hayo quwadda inoo haya oo inoo dad baa leh hubka laga dhigay war mareer baa reer hubka ka dhiga ya nidaam cadaaliya hub loo dhiibay nidaamka cadaaliga hubka loo dhiibay waayo mareer baa reer hub u dhiibay ma qabqabla hub dhiibay dani waa qabqabla weey wuxuu meesha u fadhiyana reer weey qabiil buu meesha u fadhiya reer Puntland uma fadhiyo
dastuur kuma fadhiyo sharci madaxweyne kuma fadhiyo sharciga madaxweynenimo wuxuu lumiyay maalintii baarlamaanka gurigii warqadda bayaadka cad loogu doortay oo madaxweynaha raggii u doortay ninkii ugu dhawaaqay maalintii intuu ku guureeyay uu dhiigga ku daayay maalintaas madaxweynenimada lumiyay wixii ka dambeeyay waa dictator meesha xog ku haysto weeye marka dadka wararka beenta la wareegaya oo cali salebaan magaalada laga saaray leh cali salebaan magaalada ujeedkoodii bay xaqiijiyeen dan ay u sii joogaanna ma jirin waana degan yihiin oo waa joogaan oo dadkoodii iyo hantidoodii iyo wax walba waa taala ciidan ku filan oo xataa hadduu berri ku talagalo inuu weeraro sii difaaci karo ku soo gaari karaana waa uga tageen meesha ciidankoodiina meel ma jiraan 80 kilomitir bay Boosaaso u fadhiyaan Carme u fadhiyaan meesha shalay ka soo dhaqaaqeen bay u fadhiyaan berri haddii dan heshiiskii la galay oo ka baxana halkaas ka soo ruqaansanayaan wadada dambena isagaan mari doonin garowan wuxuu gudbeen kalkacaya wuxuu gudbeen Carme hadda ka jirsadaan waxa ku iri kuwaale waa baqeen cali waa baqeen war Boosaaso waa magaalo 8 tiknika la galeen oo shalay kala soo baxeen oo arkayseen ciidanka dawladda ayaa ka xog weynaa cidda ka baqayaan waa ayo ciidanka dawladda kuwa shalay jiireen Soomaha oo markay boos galiyaan ay jiireen Soomaha soo kuwa Soomaha yey ka baqayaan midda kale Boosaaso waa la yaqaana inta jeer oo qabiil iyo dawladda ku dirday oo dawladda indhaha la basbaasiyay waa la garanaya 10 wiil baa guriga laga saari lahaa oo usbuuciyada lagu hareersanaan jiray marka cali guul bay maanta joogaan ummadda reer Puntland waxaan leenahay war cali ha lagu daydaan leenahay cali ninkii danixishoon mayo sharciini ka qabanayaana ma jiro shirkad weeye uu agaasime ka yahay Puntland shirkad buu ka dhigay nin walba sida cali yeelay isagoo aan xubad dilayn cududdiisa ha muujiyo baa leenahay nimankii warsangeli ahaa wareede war cali ma wax ku qaadataan ma looma ooyaan baa noqoteen cali ma wax ku qaadataan cali shirkad BDG la dhaho oo 10 sano ay maalayeen waa shirkad bay difaacdeen oo ku dagaalameen oo iyagii waxa ku yiraahdaa laga bariyay idinkuna waxa difaacan kara weydeen Puntland maalintii la dhisay jagadii xaq u hesheen baa difaacan kara weydeen oo habeen madow inta layni ku yimi dhafoorka layni kooda tugtay oo subax meedkiino yaala lagu dul codeeyay marka waxaan leenahay dadka qaarna dadnimay muujiyeen taariikh buug cad bay ku qurmayaan qaarna gudnimay qaateen ciise iyo xuweelka la leeyahay 10 la midaba baa warsageli leeyahay cali salebaan wiilkaas uu Puntland mushaar kaga qaata oo 40 tiknika u haya 10 baa warsageli kaga qaata xuseen dheere dheh in Cabdullaahi Cashuur dheh guri Cismaan Saalax dheh fuaad warsama dheh 10 bay ku qaataan waxa jaamacad Dakar dheh 10 bay ku qaataan Cabdi Jamaal ciidankiisa dheh war 10 bay ku qaataan 10 kaasi waxa moodaysaa inuu dani waxaan ku yiraahdaayay waa iska ag joogan shidaalkay ka bariyaan bariiska ka bariyaan maalintii dhawaato hoolka la soo weeraray baa waxa la yiri warday hoolka difaacda maya waana ruqsaynaya war ciise iyo waka reertolki waa difaacay bilad xilana waa loo kordhiyay bilad baan u kordhay hal askari lagama ruqsayn karo adeegii baa u kordhay ciise xidigii baa u kordhay ilaaha mushaharkii baa u kordhay saanadii rasaasta u kordhay haybadii sharaf u kordhay in laga baqo ciise iyo ciidanka uu haysto Carmo iyo meelaha dhaadaariyo dhinac ma dhaafaan halkaas mushaharka ku qaataan gawaarigooda waa bac warsangeli 10kii gaari lahaayeen maalintii meel buuq laga soo sheego iyaga u horeeya soo bax waxa moodaysaa inay yihiin hindi waxaan ku yiri Dubai ama Sacuudiga ka muqaawi ka moodaysaa dadkaas ka hadlimayaan ka murmimayaan gaarigooda soo baabaya rasaastooda soo dhamaanaysa generaalkooda soo dhimanaya marka waxaan dad hoggaan buu isku dhaafay cali salebaan halka wiil baa xoreeyay oo gudnimo kala cararay oo Soomaaliya oo dhan maanta ay u sacabtumaysaa warsangalina 10koodii nin maalin dhawayto markuu hoolka qabsaday dini buu u yeeray baa leeyahay habeen dhawayto u yeeray markaasuu intoodiiba mid shidaal baa rabaa qamandiga igu yar ciidanka in baan lay qaramayn wuxuu yiri shidaal adna waa lagu siinayaa adna qabandiga sheegayso waa lagu siinayaa adna ciidanka waa lagu kordhinayaa laakiin hal shardi baan ka rabaa muxuu yahay shardigaas aan gartaa waxaan idin ka rabaa inaa halka ka dhaqaaqdaan oo macagtii ceelaayo ilaa laas qoray ilaa buuraha seef ka dhigtaan oo ammaankeeda gacanta ugu dhigtaan oo argagixisada lagu sheegayo halka ka safaysaan 10 shirkadood baa heshiis la soo galay macdan qaali ah oo mercury leh oo dahab leh
oo diamond leh oo maxaa ku raacay plutonium leh macdan qaaliya ba halka ku jirta titan maxaa la oran jiray macdana ku jira waxaasan gureynaa biid waa ka faa'iideena idinkana mushaharkiinu joogto idin noqonaya ya dawladuna miisaaniyad fiican ba ka helaysaa intaas loo diray hadda ku wada yaacaya maca ku wada yaacaya waxaan leenahay daniyo waxaan leenahay nimanka saraakiisha oo reerka magacooda sheegaynaya calooshood u shaqaystayaal baatiin calooshood u shaqaystayaal dad magaciisana ma qaadan kartaan deegaan warsangal leeyahayna dhuxulka maxaa ku raay kama guri kartaan macdan kama guri kartaan danina uma ilaalin kartaan garow la jooga war maxaa Muxyidiin kaga duwantiin nacala sheedaan ku yaal Muxyidiin Shalay Cabdiwali Cali Gaas markuu xilka ka qaaday soddon technical abu la goostay Muxyidiin kala taliye booliis baan hay sheeganay sootu sinujuf goostay maaha sinujuf sootu goostay maaha oo laga bariyay oo uu imanayay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe uu ka soo duulay Kismaayo oo la bariyay oo Muxyidiin oo sinujuf fasax la yiri oo la soo celiyay oo magaalada nus inta laga dajiyay taliye ku xigeen laga dhigay markii dambe taliye ciidan booliis lagu abaal mariyay war Puntland dadku xoog buu kooda jooga xoog sharci ma yaalo meeshtan marka warsangali waxa gabay oo halka dhigay oo dayaca baday oo lama ooyaanka ka dhigay dadkii ay hubka u dhiibteen oo ciidanka u ahaa waxay xaq u leeyihiin iyo waxaysan xaq u lahayn ma garanayaan mid saddex digood oo isxiga ay halka u saaran tahay male mid ay u saaran tahay saddex digood halka male mid walba xarig iyo laba ugu xiran haye ciise yuluh waka maanta jeneraal buu maraya Muxyidiin jeneraal buu maraya Muxyidiin jeneraal muxuu ka helay jeneraal wuxuu ka helay markuu sinjuf goostay buu ku helay oo Cabdiwali Gaas u xiray jeneraal buu ku helay ciise yuluh shalay kuwa warsangali isaga Cabdullaahi Axmed Cashuur ilaa Puntland asaasay halkaas uu fadhiyay xidigu ma kordhin ciise shalay soo galo gaas qarameeyay oo gutabari ka dhigay oo xidigtii ugu horeeyay wuxuu ku qaatay markuu jingada goostay ba ciidankana loo qarameeyay xidigtii ugu horeeyay la siiyay jingada markuu goosto galan la socday xidigtii ilaa maalintu isbaaramay dhigto xidig ba u kordha shalay u dameysay jeneraal buu u dalacay warsangali sharcigaas ay ku shaqeynayaan inuu xarig ka dhaco ma xarig u kordhimiyo marka waxaan leeyahay kuwa beesha warsangali baan la hadlayaa meelaha ka qaylinaya ama dalha joogeen ama gudaha joogeen waxaan leeyahay waxa asaageen inay ka reebay wiilasha saraakiisha ah oo aan hubka u dhibateen oo aan waxba kala garanayn warina cid dilaan lama rabo warina cid ku duulaan lama rabo warina dhiig daadiyaan lama rabo warina jid goostaan lama rabo laakiin sida wiilasha asaagooda inay u xisaabtamaan ya war ciise yuluh baa shirkad ganacsi ya difaacanaya iyaguna hoolkii baarlamaanka iyagoo soo wada taagan ba Xuseen Dheeraa garow joogay Cabdullaahi Axmed Cashuur baa joogay Fuaad baa joogay waxaan iyagoo wada tuban ya ba guriga dhoobay hoganayaan meelaan ka garan mayno iyaga dhabar jabiyay taariikhda waa isqori doontaa marka waxaan leeyahay warsangali hadaa rabtaan dad inaad la xisaabtantaan inaad meel ka soo baxdaan wiilasha iska qabta caalaqaatayaasha iska qabta haddana waxay u socdaan meesha la dhaho macad buu rabaa dani inuu macdan ka guro dani waxaan ku leeyahay adeerkaaba eeday mijeehan adna walla waa ku jabi oo waliba ku dhimanaysaa haddaa joojin weydo haddaa dhigi weydo sekeelada tanaasato oo ku jawaanada tanaabto inaad dhagaxa ku gurato oo hindida ka soo qaatay haddaadan joojin walla waa ku dhiman waana ku jabaysaa waa ku leeyahay taariikhda dib u raac majeehan wixii ka dhacay dib u akhrisaan ku leeyahay intaas ku leeyahay dib u raac taariikhda dhagax baa sheegaysaa dahabe wallahi mid istijada la iskaga turo ka qaadmaysid istijada mid la iskaga turo ka qaadmaysid ku leeyahay ka qaadmaysid wiilasha saraakiisha waxba ay siinaya waxa rabto soo si calooshood u shaqaystayaasha warsangali isaga tashanaya isaga ciidan qoran doona kuwa ciise yuluh oo kale ah oo iyaga dantooda ka shaqayso la iman doona Puntland ciidan ma jiro dadka ka dhaxaya nin walba ugaar Saleebaan waa arkayseen waxay joogeen meesha la yiraahdo kala bayr bay joogeen sagaal technical bay durhaad dhaceen inta laga daba tagay oo la soo bariyay baa la yiri sagaalkiina haysta qaataba iniku laakiin ha ka taginina meeshii difaaca kaga jirteen ha ka taginina waa la soo bariyay oo la dalacsiiyay oo mushaharka loo kordhiyay oo saadka loo kordhiyay oo salaabta oo meeshii lagu socodiyay ugaas nimanka la dhaho Cali Jibraahiil afar technical ka taale durhaad bay dhaheen waa kala baxayna waa la bariyay waa saadka loo kordhiyay mushaharka loo kordhiyay war ininka dhiigiini yaallo oo maxaa ku yiraahdaayay ciidankiini la yiri waa maleeshiyaad ciidan kale lahaa waa maleeshiyaad Xuseen Dheeraa lahaa ciidan kale lahaa waa maleeshiyaad meesha la keenay ma kuwiina maleeshiyaada kuwa Muxyidiin waa ciidan qaran weeye
Puntland ciidan qaran oo ay leedahay oo meel ugu xareysan ma jiro reer walba wixiisa dawladda mushahar siisa foolibaaga ku wada qoran tahay marka Puntland waxay noqotay la jiifiyaa banaan la jiifiyaa banaan madaxweynuhu inuu ciidanka caagada istiyo kuwa jimcaale iyo kuwa muxiidiin dhaw ciidan qaran kuwa ciise iyo kuwa maxaa ku rahaa Xuseen Dheerana ku sheego kuwana argagixisa ku sheego kuwana burcad ku sheego kuwana maxaa ku rahaa maleeshiyaad ku sheego wax isqaban karta ma marka beesha warsageli waxaan leeyahay haddaa rabtaan inaad sida dadku u xisaabtantaan oo sida sharafta leh oo dadkaasi u nool yahay gobonimada u noolataan wiilasha hubka u dhibtay ka qaata oo cid in diriraysa u dhibtay warhubka ma waxa loo siiyay inay dan $80 mushahara oo la helaa la wariyaa kaga baryaan baa hubka loogu dhibay war ciidanka ma waxa loogu qoray inay maxaa ku raadayay maalinba meel ula cararaan maalin gaalkacyo ula cararaan maalin maxaa ku raadayay ula cararaan meesha dhaho garacad oo hadhowdi marka dagaaladu dhamaadaana waxa weey shidaalka loogu shubayo gawaarida waxa hubka looma siin xaqa ay beeshu leedahay inay ku doonto waa loo siiyay ciise iyo cali Salmaan maanta sida ay isku xoreeyay oo xaqooda ugu dhacsado inay ugu dhacsaan baa loo siiyay hadda warsangeli waa tashanaya shirweynu ku ballamay dhulbaahantana oo imanaya insha Allah ta'ala hadday suurto gasho maamul bay dhisan doonaan wiilasha waxaan leenahay ama dani $80 ku dhima ah haydi suusiyo tolkiina haynu ku baabi'iyo ama sida ciise raga noqda dani saasa sharaf kaga helaysaan dani ina baridaan sharaf kaga helmaysaan dani waxa sharaf kaga helaysaan oo karaama kaga helaysaan sida ciise uu tolkii u difaacayo ina tolkii u difaacdaan oo tolkii wuxuu baxdaan war miida arkayn haybada iyo sharafta ciise ka muuqatay markii carmo lagu soo dhaweynayay miida arkayn haybada dadkoodii oo dhan baa u soo baxay idinku maanta hadda tagtaan baran hadda tagtaan waa la ka cararaya sharaf balidin sharaftii baa iska qaateen shilin baa siteen sharaftiin shilin baa siteen wardani wuxuu leeyahay idima siiyo dekada umada Soomaaliyeed ka dhaxaysa oo reer Puntland ka dhaxaysa wixii ka soo baxa baa wax ku leedin dawladda nuskiina leedin jimcaale maanta ruqseeyo maanta ilaahu maanta ruqseeyo haddii ruqseeyo garow goosanaya lama ruqseen karo idinkana kii murma bax Soomaaliland baa leeyahay Soomaaliland waxa ka doonaysa dalka wax ku leedin dawladda wax ku leedin sida isu dhaama nacala shaydan ku yaalan leeyahay sida isu dhaama doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka maalintii dhooto la taagtaagay waxaas wax warsangeli khuseeya iyo wax Puntland khuseeya midna ma dani ninkii la doortay oo la midka ahaa oo kursiga ku xiga fadhiyay buu tuuray nin isaga u adeegu keensaday buu keensaday dawladdu wuxuu ku faanayay 5 milyan oo lacag ururiyay 5 milyan oo ururiyay 1 milyan shaqaaqada boosaaso bay kaga baxday 2 milyan oo dhoobu ku riday 2 milyan Cabdirashiid buu ku doortay ila Cabdirashiid lacag baa lagu doortay dawladnimo ma jirto musuq baahay baa jira dhibaato jirta Cabdirashiid isaga cod walba waa u gadeeyay 50,000 buu codka ka bixinay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil shalay waa tartamay gudoomiye u tartamay 5 cod buu helay shalay 5 cod buu helay maanta maxaa uu konto cunoo helay shalay dawlad wuxuu iibisay ma jirin maanta dawladda codka u iibinaysay farqaas u dhaxay dani wuxuu leeyahay uguma iibinayne xoogaa imaaraadu ka soo qaaday xoogaa dekada ka soo qaaday buu ugu iibinay intaas ugu iibinay marka dawladnimo meesha kama jirto kala dambeyn kama jirto sharci kama jiro ixtiraam kama jiro dani meesha maqaaxi uu isagu leeyahay buu ka dhigtay ninkii iska dhiciye oo sida cali Salmaan markuu dhaho carar wir dhaha baa la joogaya ninkaas la joogaya ninkii madaxa hoos uga rogta ninkii ixtiraam iyo madaxweyne dhaha ninkaasna wuu ku tumanaya markuu arkana waa dharbaaxaya markii uu doonana iga tag buu dhahaya wanaag iyo sharaf uu leeyahay ma jirto Puntlandna inta goorta hadaan laga qaban waa baabeesa gacantiisana ku burburaysa war sanad ma joogo wadankii meel walba dagaal ay rabshu galiyay waxa la filayay maalintu tartamayay lagu doortay balaqaadaysa kamid aha dalka ka maqan ma soo celiya iska dhaaf inuu mid maqan soo celiyay kii uu gacanta ku hayay baa bayla dadkii reer Puntland buu kala dilay qabiil buu madaxa isugu galiyay qabiiladiina wuxuu ka dhigay halkay ahayd inuu dadka u sinaado isku wado kuwana xidigu siinaya oo waxa weeye ciidan dawladeed buu ka dhigaya kuwana maleeshiyaad buu ka dhigaya argaxisu qoraya oo wuxuu rabaa inuu laayo raba waxa aqli miya dadka inuu isku wado madaxweyne u wada ahaado maxaa ku dhaalay waka
dadka kuwii u xigayna hoostu gashanaya kuwii kaleeto oo ummadda ka mid ahaana oo dadka meesha taganaana laad buu la dhacaya waxa aqal ma dhaqan madaxweyne maaha bal waxa qiyaastaan sanad buu joogaa oo sidaa ummadii uga daashay oo masaajidyada laga qanuudaya xildhibaankii sheegay oo yiri masaajidka laga qanuudaya waa arkayseen waa u hanjabay markii dambu isdhiibeyna dacwadii wala laagtay xildhibaankii isdhiibay waa kii dhooba iyo gacanta u taagay cawil dhooba ha dhaco buu lahaa waa nin lafiisa u baqay markuu isdhiibay buu yiri dacwad kala laagtay dhoobihii yiri su'aasha weydii su'aasha maxaa igu soo deysay buu ku dilay oo dhig ku daadiyay waliba marka sharci meesha ka jira ma jiro wixii buu ku tuntay dastuur buu ku tuntay wax walba ku tuntay ninka daarti laga soo doortay saa u baabiinaya ninka waxa la joogaya oo 5 sano sharaf kula joogaya 4 sano u hartay sida cali saleebaan ninka iska dhicinaya nin baryaya dani waji uma hayo nin baryo tamaya waji uma hayo nin sharci iyo ixtiraam ka sugaya waji uma hayo marka waxaan leeyahay reer Puntland ciidan dawladeed oo la isku haleyn karo ma jiro war muxiyadiin baa ku dawladeynaya ya caagada ku dawladeynaya jimcaala ku dawladeynaya kaayina waxa laga dhigaya argixisa laga dhigaya marka waxaan leeyahay nin walba oo ninkaaga ilaasho saasa leeyahay nin walba oo ninkaaga ilaasho dawladda ciidanka ay mushaharka siiso nin walba reerkiisa difaaco qaran iyo dan maxaa ku raad Puntland oo hadda la ilaaliyo oo aan idin sheegi karaa ma jirto danina afarta gaari oo madaxtooyada u taalo in adeertiisa ha isku ilaaliyo saas ba meeshaas lagu wada joogaya wax kale lagu wada joogaya ma jirto hadda shalay waxa ansixinaya guddi doorasho loo gudbiya war nin baarlamaanka weeraraya miyaa doorasho wan ma foodo xalaal qabanaya baarlamaankii buu isaga dhalay waa nin hooyadii boqonaa gooyay weey ma doorasho wan ma foodo qabanaya ma qabanayo Puntland nabad baa ka jirta Puntland nabadi kama jirto waa la wada ogyahay dani baa ku ciyaaray isaga baabiyay dawladnimo kama jirto waxa weeye maanta meeshii u xumaabay maraysa reer walba keeblo yurur weey dawladnimo ka jirta hayta reer baa konton tikniga aboos la gelaya oo ciidankii dawladda indhaha ku dhufanaya oo xaqooda dhacsanaya oo iyagii la bariyaya oo la laalushaya oo misana noqdo meeshiina fariista laga bariyaa oo meeshooda lagu celiya dawladnimadu marka meeda dawladnimadu waa dawladnimada ay sheegaysa aniga waa tuma boosaasa nabad baa ka jirta nabad xagee taala boosaaso tii kontonka tiknika cilisay intuu la galay ciidankii dawladda indhaha ku dhuftay ya oo waxa weeye laba ka dilay shan ka dhaawacay oo boosaasa galay oo la soo bariyay oo waliba la soo nooyay oo ujeedkiisa hadafkiisa xaqiiqsaday oo armo maanta na fadhiya dawladnimadu meeday wadanka yaa halka gaarsiiyay dani baa gaarsiiyay dani wuxuu gaarsiiyay waxa weeye maxaa cali saleebaan shirkadiisa u geeyay faroola uga leexday oo u saxiixay cabdiwali baan ku faragelin bil isagoo aan joogin buu yiri shirkadda in ka qaadaya haddii cali saleebaan shirkadooda ay wax bi'iyeen oo xumeeyeen soo qandaraasku soo inuu si hufan loo soo eedeeyo dawladdu nidaam sharci qandaraaska uga qaado qandaraaska la dhajiyo loo tartamo soo maaha maya intii midna ma sameyn way idinka qaaday wiilal ilma adeertiyaan kaysanaya loo tartamayo la soo bandhigi mayo annagu cali saleebaan qandaraaska yaan laga qaadin malihin waa laga qaadi karaa laakiin waxa looga qaadi karaa sifo sharciya looga qaadi karaa sifo sharciya baa looga qaadi karaa marka laga qaadana sifo sharciya baa qandaraaska lagu bixin karaa ummadoo dhan baa u tartami karta si daafran ciddii awoodeeda yeelata oo qandaraaska qaadan karta baa la siinaya dowladda sharciga xilka waa laga qaadi karaa laakiin sifo sharciya looga qaadi karaa in baarlamaankii loo hanjabo inta loo tago in maxaa kula howlkii la weeraro in dhiig lagu daadiyo in xildhibaanadii la laalisho waxaaste sharci maaha dhoobo isaga gudoomiyaha sharciga ah gudoomiye sharci shantaas dani joogo gudoomiye sharci buu noqonaya huburusi ku jira sida cali saleebaan shirkadiisa u difaacday buu rabaa inuu garowga u galo oo baarlamaanka u qabsado insha Allah ta'ala saas doonaya sababtoo ah ixtiraam jirmeesh wax ixtiraam oo jira ma leh wax ixtiraam oo meesha yaala ma jiraan dawladnimo ma jirto Puntland waa xishood waa dhamaaday isimkii warsangeli oo Suldaan Saciid Cabdisalaan oo baran looga yeeray oo dani u yeeray oo aniyo dhoobo kaalina dhexdhexaadi u yiri buu albaabada ka xirtay oo qaabili waayay oo markii Islaan Ciise u bariyay oo yiri war islaamka isimkii hartiba meesha jooga Suudaanka hartay arag oo arkay oo intuu dhageystay uu yiri maya iska soco iridda isaga ka bixin buu weeraray kii cali saleebaan hadda waa loo isaga u sacabtumaya dhibaatadii boosaas u xaliyay
كان محا أديدي إنه دبت حليو كان محا أديدي كان ده أود عيدا بعدن كو أرق لكن كان علي سليمان جنرال كيسي بعد نرجع نقضو اسم كسكامر قادنية مركز ساكو كلفتين عبريدو بكو كلفت هدي ما هبينكي سودان سعيد مركو لها إداف مركو لها ما أقول سنة عبد الله عيسوش يجي كما أقول سنة مركو لها هدي ويرش ورسجليو مش جوجا كوا سلاكيش شجنا يا هول كقبسنا هاي إسا بريت منها سودان ويقص ستار كنتان يقص ستار بورنا مركا مشاس وعلى كلا بقاء لما كلا حشودو شنتا سنو أفرتا سنو الدنيا وجوجنا وحلقوا الجوجا ننحنيه عندي الجيري كروا على الجيري هلا الشهر قريب هلا الشهر قريب عندي وحيدا دع سنة ولا قال لي حنية ولا قال لي حنية ميد محا قدامي كالس يشدو تسألوا حين كفلان ورسنجلي أو أحد القرامات كجالي أو كهلا 98 كي سامي قيب سجودي هاي أدي الشرع هاي أو لا دورتي أنت لو وصل على لجود لي هي علي سليمان أو الشركات جنعسي لوجع عرري أو يروح كد لي أو لوجع عرري أو اللي بلسيبري أو جرادوينو كردين أو عيدم أكردين أو وسارة ديرة أكردين تاس بتسألين كفلان وحايون كفلان عيدك وقار سليمان أو فديه كلابير أو سجال تكنيك الدولة كدعي أو لقلي بري لقلي أو دولة صوب بري أو تري ورسجال تكنيك أنا هالك عندنا ما هينه قات سجال كينا إنك قات لكن مش جوجا أو مش عارف قات تاس بتسألين كفلان وحسألين كفلان مركا بنتلان وحلينا هاي دين الدولة إنه ما مرحبا مد بنتلان مرحبا مد سومالي مرحبا قرن كسومالي تاسو وقعوا هيا تاسو وقعوا هيا ويلي مقدش عقب بدقي إمارات لح جرب بتجي إمارات لح جرب بتجي إثيوبيا شن جرب بتجي جاينا لح جرب بتجي مقدش أنا تجي مايو فدرال بحربا دولة فدرال بحربا أو هذا ما أنت أوترتو إن فرماجيو إن على خيريو ما لسه دودو أو حق ولا هويديسو أو هدي أسفهم ولا هذا مقدش جوجا شد قبته أو ترى هذا الملك الدولة ما أقوله فدرال ما أقوله ما ترى هذا ما بقول تجيبه ما بقول تجيبه مقدش ما بقوله isaga iyo musabixi Muusa laba boqol jeer sukaya waxa la yiri abeesada tan shuuqda iyo tan aamusan teel qaati warta shuuqda la qaati Muusa meelaha isku qeynliyaa dawlad Soomaali maraba kan waa aamusan kiyu tagaya wuxuu rabo u saxiixaya kismaayu tagayay waa arkaysan unsi markii la yiri waxa moodaysa in la yiri jannada loogu bishaareeyay moodaysa unsi markii madaxweynaha Soomaaliyeed oo in adeerkii marka ninkii yaati intuu meeshimi oo kii xilkaaya oo caay halku oran laha warnaga caam halku oran laha dawladnimo ma ogola sharaf ma ogola cis ma ogola karaamo ma ogola isaguna yeelan mayo lana siin mayo ma la siinayo dad baa madaxweynaha ma kaxshoto madaxweynaha nooma xisaabsana waa kaligi taliye wixii loo doortay meel iska dhigay sharciga ka talaabay Puntland burburkooda reer Puntland kaca iska dhiciyay iska dhiciyay maanta amaan ma jiro دشي شمريرة أفر بقولوا ويلقجتا ساعد ربع مقالة سوق الكرام بريرو بأفر بقولوا ويلقجتا دشي غير أن ما أنت قرية كبل يورو رهين كالسوني دي بالمطي دتك دت أهل أو ولا لا أو احترام يو ولا تنمو أهل ما كود الجوجا بحين وحي بالله ما يمشي كبحين وحي ما يمشي كبحين بطلان قبيل بكل سنة ديمقراطية مقارن حزبية مقارن قبيل بحرمان كحتى فردية قبيل بالوقف صدي قبيل بكو فردية وسيرة قبيل بالوقف صدي عدالة موضوع ورنيكاس dhaqan uu soo kordhiyay baa inii sheegaya dhaqan aanan anigu weligay arag oo maqal maxamuud Saleemaan wasiiru ka wada simay wasiir buuxa maxamuud Saleemaan wasiir ku xigeen male wasiir dawlad male wasiir beeleeyeen ciise maxamuudna laba leeyihiin cumarna laba wasiir beeleeyeen ismaana laba hal wasiir buleey wasiir ku xigeen wasiir dawlad male hadii la weydiyo la yiri war heede maxaa dadka kale to warsangal lix wasiir ku xigeen iyo laba wasiir dawlad ugu rartay محمود سليمان أشين ويدي أو وسيردي أسيسي ما دتك إسقو قيبس أو عيسى هالوسير يلا بكو حاجة سيسو يا وزير الدولة واستقلنا الصبح وحن علي سليمان هالوزير يا واحد ليه أفرك حاجة يا وزير الدولة بليه مركو عليه ورعالي محاو حكلا دونت ججب محاكلا دونت ججب ما المينو عمر محمود نتراعد وزير باسينا يا علي سليمان وزير كوا كنا اللي بكو حوين كوا كنا اللي بحكو حوين وحيري نين محمود سليمان نين علي سليمان أمر محموده أما معاكو راه لا وبينيا إنه كهوس شقية ما أقوله بل إيجا 20 مش كجاري إيجا مركا اسمع محمود سليمان إنه وزارة يسوي وزير كيهي يو إنانو جوجين وحوجا من الحياة مركا والسنجلي أما بالبعته
وما هيو أما دشيشة وما هيو وزير كحيين أما وزير الدولة محمود سليمان وقول إنه كهوس شقيه أو أيو كسريان وما هيو سبب تعدرتين بان محمود سليمان وزيره ونسي هلبها السريع بأسي هلبها هو سحكم له بل عنصري نما يحمان هلكو كجاري هلكو كجاري بل وزير كحيين كان قدك كسينيا واللجويو هي دتكي بكلا سريسيي ددنا وحو ربا inay iyaga ka hoos shaqeeyaan dadna ma ogolaan inay dadka ka hoos shaqeeyaan cunsurinimo meesha ka gaaray eega dadkii ehelka ah oo halka joogay buu xumaan kala dhigay Puntland kalsoonidii hal sheer gareeyo dad ehela baa meesha wada joogay ixtiraam baa lagu wada joogay kala dambeyn baa lagu wada joogay cid xoog ku haystay ma jirin ciidan isku dhafa oo maxaan ku dhahay lagu heshiyo meesha jooga ma jirin xisbiyo qaran oo la soo doortay oo reer walba ma jirin reer walba isimkooda maxaan ku rahay xildhibaan oo shuxulayay wasiirada qabiil baa lagu qaybinayay ciidanka reer walba xooda loo qarameynayay tiknikadooda haystay wixii buu sii kala daadiyay kalsoonida baa meesha ka baxday kalsoonida markay meesha ka baxday reer walba wuxuu ku khasban yahay tuuladiisa inuu xirto buu ku khasban yahay reer walba tuuladiisa reerkii wax iska dhicinaya dani ku degdegi mayo sida cali saleebaan uga leexday oo uu iyagii oo xoog boos isku galay darajooyinka uu kordhiyay buu uga leexanaya kuwa kale to masaakiinta ana وجيريا حتى رالجلن سينمي وحلا سعتان دتكي وهول كبرلمان كودلي إلى أي هذا أفكي سجوق لغما هيو كما تعسيين وتعسيدا قفكم مركو دنتو حق وحول ليها إلا رهو إنا لله وإنا إليه راجعون انت وكرواي عسكر كليه ماهن دت شعب حتى مش هقول انت هاي علي جبراهيل نكي كد غاغيو غنعسدا اها halka soo dhigay garwa lagu dhextay ninka ما ninka علي سليمان علي جبراهيل ka dhaqaaqay dhiga weyni haduu hatta ciidankii warsan galiyay waa maleeshiyaad war dadkii shacabka halka ku dhintay ma u tacsiin waay inta ma u tacsiin waay marka dani laba mid bay noqonaysaa saddex mid bay noqonaysaa waxay noqonaysaa Puntland afarta sano u ku haray ya in xoog lagu wada joogo ar iyo wir in lagu wada joogo bay noqonaysaa saas ama waxay noqonaysaa inay gacmihiisa ku burburdo oo dadku dawladda Soomaaliyeed reer walba tuuladiisa la hoostago ama waxay noqonaysaa inuu isagu meesha baneeyo oo cid madaxweyne cusub oo dadka mideeya oo astaan qarana oo Puntland dadkaas ku wada hiran karaan oo u dhaxayn karo isku wada kara meesha la keeno ninkani dadka iskuma wadi karo uma dhaxayn karo جفو سعيد أنا سماهن سعيد جفو وبحية سعيد جفو عقلي سيندي سوا جفو بحبس وجرا جفو هل جفا هستا سعيد جفو نقرن بمودني بطلع اسكو ذكره هرمر قاسين كره جفو بكسور سعيد جفو مركا اسكو هالمسجد إنا جفو وحوي برسد على ساعة وهجنس وكتلقاتي إنا بطلع روح حكومة هذا اسكو المسجد كلنا marka waa ninka shiina culeeyaha waxaan dilay video gal si share gareeyo xaaladda Puntland haloo duceeyo nabad baa ka jirta nin kale nabad baa ka jira nin xoogeen weey nabadu maaha macnaa meesha hada xabada qash taa nabad lama dhaho deganaansha ma jiro meesha lama degana dadkii dhaqaale lama hayo amni lama hayo waxaan ku dawladnimo lama hayo sharci la dhowriyo lama hayo ixtiraam lama hayo kala dameen lama hayo waxa la hayo male saasay tahay buu hadda wuxuu u socdaa dad deegaankiisii buu lacag 5 milyan ku soo xunay airportkii buu iibiyay dhagaxii warsangali oo halka macag yaalo dhan buu soo iibiyay oo hindi ka soo iibiyay oo uu geeyay oo ay soo sahmiyeen oo ku qanceen oo hadda u soo socda inta oo maraakiib u soo socota marka wax yaala meesha ma jiraan haloo duceeyo wanaagoodan jecelahay horumarkoodan jecelahay dawladnimadoodan jecelahay horsocodkoodan jecelahay laakiin dani oo habar qaba ah ba meesha ku galgalanaya ilaahay farash qalqab ha u furo hal si share gareeyo kunka ay daawanaya waa ka baxaya hal ay share gareeyo intaas aan ka codsanaya intaana meesha ka bixin share ta lagu dhufto qof walba ha si share gareeyo share waa bilaash way si share gareeyo nacala shidan ku yaal wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh